waxaad la socotaan in saddexdii sane iyo ku dhawaadkii isbeddel ka dhacay dalka Itoobiya deegaanka Soomaalidu uu yahay meelaha la oran karo waa meelaha ugu horeeya ee ka faa'iiday isbeddelka haddii aan laga been sheegayn waxaan saawleynaa waxa weeye isbeddelku waa maxay haddii la yiraahdo isbeddelku waa nabadgelyada aan haysanno waa isu socodka deegaanada ee shalay kala xidhnaa waa xorriyadda qowlka xorriyadda dhaqaalaha ee ganacsiga cid kasta si rabto u ganacsanayso waxa weeye ballaarinta matalaadda beelaha Soomaaliyeed ee deegaanka ku nool marka runtii isbeddel aan la qarin karin oo wanaagsan oo shacabkeena iyo deegaankeena dejiyay ayaa jira dhanka dalka waxa aad iyo aad wax loogu farxaa in kooxdii 27 sano dhiigmiiratada ahayd ee dadka leynaysay ee ummadda baabi'isay dalka laga qabtay isbeddelkaas oo keenay in maanta dalku xasiloon yahay waxaa warbaahinta reer galbeedka iyo dadyow fara badan oo iska dhigay khabiiro Itoobiya yaqaan ay ka hadlaan in arrintii ka dhacday waqooyiga Itoobiya ee ay ka dambeysay qolada juntada ahayd operation-kii lagu qaaday waxaalihii ka dhashay hadday tahay xagga bini'aadanimada iyo waxa la xidhiidha inay yihiin arrimo ballaaran oo ay tahay in lagu cambaareeyo isbeddelkii uu hogaaminayay Dr. Abiy hase ahaatee haddii aan operation-ka la qaadi lahayn waxaa laga yaabaa adduunku inuu ka hadli lahaa ma aha meelo kooban oo ay ka jirto xaalado bini'aadanimo oo ka dhashay wixii ka dhashay dagaalka ka dhacay waxaa laga hadli lahaa maanta burburka dal dhan oo 110 milyan ah waxaa laga hadli lahaa sidii qaxootiga ka qaxa dalka oo 100 milyan ee kala gala geeska Afrika loo maareyn lahaa state collapse ka dhici lahaa dalka oo dhan ayaa lagu badbaadiyay hawshii sharciga talaba sharciga laga qaaday kooxdii juntada marka waxaan rajaynaynaa in dalalka hadda culayska ku haya dalka ee ka hadlaya in arrimahan halkaas wax laga qabto inay fahmaan wixii keenay arrintaas iyo wixii dalku ay ka nasteen cid kasta oo wax ka sheegta isbeddelka hadda jira ama ra'iisul wasaaraha dalka hadda jooga ama dhaliilaha guud ee xukuumadda deegaanka iyo dalkaba ka hadla xaq bay u leeyihiin wayna jirayaan dhaliilo laakiin taariikhda waxa u galaysa ra'iisul wasaaraha inuu yahay ra'iisul wasaarihii dalka ka nadiifiyay nidaamkii dulliga ahaa ee dhiigmiiratada ahaa ee TPLF taasi wax la beenayn karo ama la diidi karo ama jacayl shakhsi iyo nacayb shakhsi lagu xaqiri karo maaha aad iyo aadna waan ugu mahadnaqaynaa ra'iisul wasaaraha oo hormood ka ahaa hawshaas iyadoo in badan ay ka shakisnayd inay suurtagal tahay in juntada xidada looga siibo deegaanada kadibna Addis Ababa iyo caasimadii laga saaro kadibna meesha ay defense ka dhigatay laga daba tago iyadoo oo dad fara badan oo isku tilmaamay inay khubaro siyaasadeed yihiin ay shaki ka qabeen ra'iisul wasaaraha iyo hogaaminta uu maamulayo ay ku dhiiradeen muddo aan bil dhanayna way ku soo afjareen guusha la taaban karana waxay keentay maanta in 95% iyo in ka badan dalka Itoobiya meel walba nabadgelyo iyo naalooyo laga joogo meelaha hawlaha operation ka socdaana la rajaynayo in muddo aan fogeyn iyaga ay ku soo nastaan marka waxyaalo badan oo media laga akhriyayo waxyaalo badan oo dado gudaha iyo dibadda oo danale ay jiraan ma qarin karaan shacabka Soomaaliyeed sida ay ugu nusteen isbeddelka taa hadda ka hor waan sheegnay haddana waan ku celinaynaa waa loo arki karaa dawlad nidaamka ay ka mid tirsantahay difaacisa waa loo arki karaa dhaqanadii hore la yaqaanay ee ahaa muxaafidnimada in wax walba oo markaa dawladdu lagu taageeray la yiraahdo laakiin xaqiiq ahaan mid la xaqiri kara ma aha ra'iisul wasaaruhu inuu taariikhda Itoobiya u gali doono inuu yahay ciddii soo afjartay nidaamkii dilka kufsiga boobka xaqiraadda ku hayay shacabka Soomaaliyeed iyo guud ahaan shacabka Itoobiya arrintaas weeye tamaanta aan bogaadinaynaa tamaanta aan isugu soo baxnay xisbiga barwaaqo intii aan ka mid noqonnay raadka aanu ku yeelannay siyaasadda dalka Itoobiya wuxuu ka muuqdaa kaalinta hadda aan ka ciyaarayno siyaasadda dalka meeqaamka iyo ixtiraamka shacabka Soomaaliyeed iyo hogaamintooda loo hayo wax la diidi kara maaha dalkan Itoobiya
xaq baan ku leenahay innaga dhaxaad u noqon karna xaqeenna inaan sheeganno oo aan dhaqaalaheenna iyo dadkeenna kor u qaadno waan ku qasbannahay taasi ay u timaado waxa kale oo ku qasbannahay wada noolaanshaha inaan ogolaanno waxaan ku qasbannahay ixtiraamka inaan ogolaanno waxaan ku qasbannahay deegaanada jaarka inaan nabadgelino waxaan ku qasbannahay in innagana layna nabadgeliyo meel kastoo Itoobiya xaqiina laynaga siiyo kumaanku quna dhalinyarada halkan fadhida ee Soomaalida ee jaamacadaha ka soo baxaya kuma filaan doonto shaqooyinka dawladda ay ka bixinayso heer deegaan waa inay saba shaqo ka helaan waa inay waasa shaqo ka helaan waa inay adaama shaqo ka helaan waa inay dalka weyn wax u doontaan iyo jaarka iyo qurbaha inay tagaan weeyaan population uu kordhaya sidoo kale qoomiyadaha kale inaloo nool xaq bay ugu leeyihiin deegaankooda inay ku noolaadaan ku ganacsadaan xaqooda ay ku raadsadaan fikirkaas waa fikir xadaarada oo cid ka noqon karta ayna jirin taa in shacabku ay qaataan xisbiga barwaaqo wuxuu u taagaya waxa weeyaan xisbiga barwaaqo inta badan lama sharxo muxuu yahay weeyaan heer qaran wuxuu yahay xisbi raba inuu isku wada qoomiyadaha iyadoon laga tagay nidaamka federaaliga oo cid walba deegaankeeda ay maamulanayso in la isku wada qoomiyadaha oo dhan oo cadiifad iyo nacaybkii la dhex dhigayay la joojiyo heer deegaanna waa mid u taagan in Soomaali la isku wado iyadoon laga tagaynin in qabaa'ilka iyo beelaha Soomaaliyeed ee deegaanka ku dhaqani cid waliba xaqa ay u leedahay inay ka qayb qaadato siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo ganacsiga ka jira deegaanka iyadoon la xaqiraynin in Soomaali la isku wado oo cadaalad la isugu wado oo in la garamo oo la doodo la isku wado xisbi u taagan weeyaan